بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل: وشرائط التيمم 5 أشياء. meesha wuxuu ka guda galay gabagabaysiga ama booraysiga. gabagabaysiga waa tahaaro bedelka ah isticmaalka biyaha, waxaana laga tahaaro qaataa xadadka yar ee waysada waajibiya iyo ka weyn ee qabayska waajibiya. labadaba waa laga tahaaro qaataa sida biyahoo kale. shuruud buu marka leeyahay gabagabaysigu, iyo waajibaad iyo sunan sida waysadoo kale iyo waxyaalo buriya, kuwii buu marka ka hadlaya. wuxuu yidhi: wa sharaa'idu tayamumi, gabagabaysiga shuruudihiisu 5 أشياء waa 5 shay. 5 shay waa sharti u ah. shartiga wuxuu ka wadaa bimacnaa intaan cibaadada la gudagelin wixii laga maarmaan ah ee in lala yimaado ay tahay, cibaadadaana markaa ka baxsan baa sharti laga wadaa. cibaadada wixii gudaheeda ee laga maarmaanana rukni baa la dhahaa, faradna way dhahay. marka sharaa'idku wax weeyaan intaadan gabagabaysigii gudagelin maxaa loo baahan yahay? ayib, 5 shay baa marka laga maarmaan ah. ta koobaad waxa weeye wujuudu alcudri, cudurdaar jiritaankiisa, bisafarin, safar sababtii ku yimid, aw maradin, ama xanuun dartii. waa inuu jiro cudurdaar keenaya inaad isticmaasho carrada beddelkii biyaha. cudurdaarkaasi ama sabab safar buu ku imaan, ama sabab xanuun iyo cudur buu ku imaanaya. adiga biyihii isticmaalkoodii waa inay suroobi waayaan. safar maxaa loo yidhi? bimacnaa markaad safarto waxay u badan tahay inaad biyo weydo, soo ma? fain lam tajiduu maa'an baa markaa meeshaa imaanaysa. haddaad biyo weydaan safarkay u badan tahay in biyaha la waayo. maradkuna waxa weeye biyihii baa waxaad ka baqaysaa haddaad isticmaasho in ay xanuun kugu kordhiyaan, ama xanuunku haya bogsoodkiisa inay dib dhigaan, ama jidhkaba ay dhib u geystaan. markaasoo kale biyihii waad ka tegiyo boodhkaasaad carrada isticmaalayso. marka wujuudulcudri waa shardiga labaadii wax weeye wa dukhuulu waqti asalaa, salaada wakhtigeedii waa inuu soo galay. yacni salaadda aad u gebagabaysanayso intaan wakhtigeedii la gaadhin ma gebagabaysan kartid, uma sii gebagabaysan kartid. macnaha sababtu maxay tahay? waxay leeyihiin xadiidkaa wuxuu leeyahay: faأyuma rajulin min ummatii adrakathu الصalaatu falyusalli. marka idraaku الsalaa wakhtigeedii waa inuu soo galay leeyahay. talabaad waxay leeyihin tayamumku waa tahaaro loogu talagalay daruuro. wakhtigoon soo gelinna daruura maba jirtaba, soo ma? daruura waxay timaadaa markii wakhtigii salaada la gaadho. sidaas daraaddeed xilligaasay daruuradii joogtaa, xilligaa unbaana gebagabaysigu bannaanaanaya. marka waa in wakhtigii salaadu soo galo. ayib, waa shardiga labaad. shardiga saddexaadii waxa wa talabulmaa'i, biyo raadintood. markii wakhtigii soo galo oo xilligaad gebagabaysan lahayd la joogo, waa inaad raadiso bal inaad biyo heli karto. laakiin waa markaad u gebagabaysatay biyo la'aan. ilaan maxay nidhi cudur baa xanuun baa loo gebagabaysan karaa, soo ma?
haddaad xanuun u gabagabaysatay biyo raadin uma baahno markaa laakiin biyaha waxaad raadin markaad gabagabaysigaaga sababta keentay ay tahay calashaani biyaan waaye marka intaadan gabagabaysanin horta biyo raadi bal inaad heli karto almuhim meesha aad joogtay ku xidhan tahayoo haddii markaa aad isleedahay wallahi haddaad yaro warwareegto ama wax fiirfiiriso ama baadhbaadho inaad biyo heshaa dhici karta haddii aad isleedahay baadhis baa lagaa rabaa marka maxaa yeele aayaddu maxay tidhi fain lam tajiduu soomayna haddaydaan helin helitaan la'aantu goormay noqon ya waa raadin kadib soo maa ayib ama ma ahee haddiise laakiin meesha aad joogto iyo duruuftaada iyo aad ku qanacsan tahay haddaad biyo raadisay inaadan helayn ood yaqiin ama halabatu danni malahaagu saa u badan yahay raadintu markaa laazim maaha ayib wa talabu lmaa'i iyo biyo raadintood waa shardiga saddexaad shardiga afraadi waxa weeye wa tacaduru isticmaalihi biyihii isticmaalkoodu inuu suroobi waayo yani wuxuu u suroobi waayayaa biyihii waad heli kartaa laakiin inaad isticmaasho kuuma suroobi karaa biyaha meesha yaallaan iyo adiga meeshaad joogto ayaa waxaa idin dhexeeya maalan cadow baa idin dhexeeya biyahaas haddaad aaddo waxaad ka baqaysaa inuu cadow ku dilo ama tuug ku hesho ama subabawarba ay ku qabsato sooma subabawar baad ka yaabeen inay qoorta ku goysada marka waad baqaysaa ama waxaad ka baqaysaa libaax iyo shabeel iyo waraabaad ka baqaysaa ama waxaad ka baqaysaa alaabtaada haddaad ka tagto intuu kuu soo doomaroo kaa xado cidaad kaga tagta ma leh ama dad aad la socotay baaba kaa tagahayo haddaad biyo raadiso biyihii meel bay jiraan haddaad raadiso waxaad ka yaaba in lagaaba tagaba oo safartu kaa tagto dhibna ku soo gaadho marka waxaan leenahay tacadara isticmaaluhu biyihii waa la helay laakiin isticmaalkoodii baa markaa suroobi waayay hawlo kaloo adag baa ka soko maray somaa markaasi wax weeyaan iyadana waa la gabagabaysanaa ayib wa icwaazuhu biyaha waayitaankooda bacda alabi raadin kadib macnaha waa la yidhaahdaa laakiin macno kalea ka in la yidhahdo icwaazuhu u baahashadiisa uu biyaha u baahday bacda alabi raadin kadib icwaasku laba macno waa noqda waayitaan waa la yidhahdaa waxaa kaloo yidhaahdaa u baahasho biyihii waa la hayaa laakiin waa loo baahan yahay cabbitaan baa looga baahan yahay xayawaan muxtaram ah ayaa u baahan aadama ah ama noolo kale ah sidaas daraaddeed haddii biyihii ayna qaybsamaynin cabbitaan iyo u qaybsamaynin iyo inaad ku weysaysato markaasi cabbitaankaa la hormarinaya gabagabaysa markaa wa icwaasuhu u baahashadiisa biyihii loo baahdo bacda alabi raadin kadib ama waayitaan iska dheh labada waa la yidhaha waaturaabu iyo carradii alطaahiru ee daahirka ahaa ka carradaasoo lahu isagoo uu sugnaaday hubaarun cara ay u sugnaatay hubaarun boodh uu u sugnaaday boodh waxaa kaloo iyadan shuruudda ka mida inaad hesho carro daahir ah carradu hadday nijaas tahay bimacnaa laguma gebagabaysan karo shardiga labaad carradaasi waa inay boodh leedahay boodh wax gacmahaaga soo raaca waa inay leedahay ayib maxaa la diidayaa waxaa la diidayaa hadduusan waxbaba kaa soo raacaynin oy maalan quruurux tahay ya oynan boodh lahayn ama bus lahayn markaa laguma gebagabaysan karo cinda shaaficiya wa jucilat lii turbatuhaa xadiidkaasi deliishanay carradeediibaa waxaa layga dhigay dhulka tahuuran baa layga dhigay midaan ku dahaaro qaato marka turba waxay leeyihiin waxaa ka laazimaya carrawa sidaas daraaddeed nusuusta aayadda qur-aankaee saciidka cabirtay iyo axaadiista kale saciidka cabirtay saciidka waxaa lagu qaydayaa riwaayadaa dhahaysa turaabka dhahaysa ama waa inuu derbi yahay wax kaa soo raacayaan oo gacmahaaga markaad saarto bus kaa soo raacayso ama waa inay carrada caadigoo busku soo raacaysata haddii kaleeto maya bay leeyihin ayib
وحيله فإن خالطه عرضاسي أتكو جبجبيسنيس خالطه حدي أوديه أو كده درمضو جس نورد جس جوا ونورد أو أمس رمل أما قرورح بعد لم يجزي مركا مجوديو سو عرمينا دي عردي waxaa ku qasantay jinsi kale waxaan iyada ahayn oo quruux waa ku qasmay ama meehe nooc kale oo nuurad iyo baashan la yiraahdo muxuu ahaay shamiita iyo waxaasa ku qasmay markaasi lam yujzi magudayo buud maxayna u gudaynin laana carranimadii waa inay carratay soo ma dhihin carranimadii khalis ma waxba ku dhex jira markaa طيب intaasi waa shuruudaha tayammumka وفرائضه واجباتك تيممك واجباتك سنة 4 أشياء وأفر شيء مركا واحد قدك شيء إناد قبقبيسته أفر شيء بالغا مارمانا مركا النية ويمد هري ونيده إن النيسته عبادة آد قليسه يظهارا آد عرضه كل ظهار قادنيسه وإن النيسته وقلبك قشته وتكقو أنسته طيب ومسح الوجه وجهك مسحديس وجهك أود كعمها مريصه وطلبات وجهك أنتي بيها لمرين شري أياد لوضع كعمود مركات عرض صارت أياد مركا وجهك مرين إيسا واليدين يلوضع كعمود الله مسحه أي مسح اليدين لوضع كعمود الله مسحه إيجانا مع المرفقين لوضع حصول للقبه لوضع كعمود وين هذا مسحه إلى حصول الله إلى مرفقينك سيدي ويسدو كله طيب بمعنى وجهك قرن حيليه ما دام أي جبيسه بدل كيه ويسده أنتي ويسدو قاري شرتو كعنتك قاري شرتي وين لقارسي طيب حيد الشنيان أثر عبد الله بن عمر أو ضعيف حديثان ضعيف أو موقوف واحد وراه يتيمم كوا ضربتان لو قرر دولك لو دفت ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين هل قراعس وجهك لو مسحي مد لبادنا قعمها إلى حصول اللي قاعدوا ساسو طيب دليلها ولا حق بدن هي لكن مذهب كاساس دليلها حق بدن إن لما صحيو لبضك كف أو كليه قعنت أنت هذا كليه أن لما صحينين حديث كعمار بن ياسر بانا معناها كتصي وأنا مذهب كإمام الشافعي في القديم وقوله القديم قول كقديم كأبا كحق بدن قول كجديد كأبا وميلا قديم كحق بدن دليل كمركل فيه صاصي معنا والترتيب ويه كلا ترتيب ترتيبكم حلقة وذا صوم الرسوم سيدا الله صو شيء وين السوق حج وجهك كعمها وبس حال دي هاي إن كعمها كب الوضوء وجهك دمبيسيس ده يلي معنا طيب وسننه جبجبيسك السنوين كي سنة 3 أشياء وصدح شيء صدح له هره وواجب ولازم لأن تود تيممكم ما أصحيه صدح ذا النواصن حبا الله تمادنا وخير هي ظهارة هذه ونما يسترى حدات كتكتنا ظهارة دي مبوريسو ظهارة دي وأصحيسها والسنن والسنوين كيسو 3 أشياء وصدح شيء التسمية الله مقعابد بسم الله ديوان مركز قبيساني سينا ترادو بسم الله سيدي ويسيدي قبيسي وكان وتقديم اليمنى مدك تول هرمري على اليسرى بدح إذا لقى هرمري طيب مركز قبيسانيو وجهك إيوه لو وضع عمل صومه لو وضع عمود مركز مدك يبدح كلا له مركز مدك تكو هرمر ومصح كدي من بدح ذك مصح وكدم بيسي طيب والموالاة يا السنة الصدحة وحوي الموالاة واسكو حجين حريرين وان حريرين أو محل قوة حريرين يا النظام مرني وينو سن
waqti dheer u dhaxaynin labada xubin wajiga masixidiisa iyo gacmaha masixidooda waa inuusan waqti dheer u dhaxaynin oo kala jarin kala goynin baa la rabaa macnaha ayib maxaa yeelay weysadii baynu ku soo marnay soo maa maadaama uu tayamumku bedel weysadii ka yahay xukunkiisu qaadan bay leeyihin sidii oo kale waa bal isagaaba ka daciifsanba ayib gebagabaysiga marka iyo tayamumka saan soo sheegnayba markaad ka gebagabaysanayso muxuu xadadka yar oo weyse u baahan tahay iyo markaad qabays u baahan tahay oo xadadkii weynaa aad ka gebagabaysanayso qaabku waa isku mid weyn waa wejigaa la masaxayo iyo labada gacmood yani ma kala duwana sida markaad biyo ku dahaaro qaadanayso midna qabays u yahay ya midna u yahay weyse oo xubnaha qaar ka mid la dhaqaya u yahay saas ma aha gebagabaysigu waa uun hal nooc haddii qabays bedel ka yahay iyo hadduu weyse bedel ka yahay halkaa nooc buu noqonayaa macna ayib والذي midka yubtilu buriya halkana wuxuu ka gudagalay gebagabaysiga dahaaradiisa maxaa buriya والذي midka yubtilu buriya at-tayammum gebagabaysiga ثلاثه اشياء وصدح شيء ككوبادي waxa weeye ma abtala alwudu'a wixii weyse jabiyay wixii weysada jabin jiray gebagabaysigana waa jabin kara sooma laana weysada ka xoog badan sooma gebagabaysiga ya hadiiba tii xoog badnayd uu jabiyay tii tabarta yaraydmiyuu daahaya taas waa marka wixii weyse jabiyo dhawaan soo baranee gebagabaysigana waa jabiya wa ru'yatul maa'i ayaa jabiya sidoo kale waa shayga labaad ee gebagabaysiga jabiya wa ru'yatul maa'i biyaha aragoodi fi ghayri waqti salaati salaadu waqtigeeda waqti aan ahayn aad aragto maxaa laga wadaa hadaad biyo aragto adoo gebagabaystay waxaad u gebagabaysatayna ay ahayd biyo la'aan ya maaha inaad sabab kale u googay mesela xanuun haddaad u gebagabaysatay ama biyaha qabowgoodii baad ka baqdood u gebagabaysatay marka biyo aragoodu way jabin maayo gebagabaysi sooma laakiin goormuu jabinayaa marka sababta aad u gebagabaysatay ay ahayd biyo la'aan biyi baad aragtayba marka waa jabaya ya waa inaad gebagabaysato marka طيب حديثك معناها تلماميو إن السعيد الطيب طهور المسلم يا عرض وناكسن ومؤمنك مدك ظاهر سوا وإن لم يجد الماء 10 سنين طبعا سنة هدوسا بيهلين ويسكا قبيسانيا علي مركب فإذا وجد الماء يا فليمسه بشرته شيء كيس مركب حتى بسي يعني بيها استعماله مركب فإن ذلك خير مركب وحويلي في غير وقت الصلاة حكا وضع بيها مركب أركيسي تيممك أو كاتشبينيا أرق بيوه كاتشبينيا ومركب الصلاة كتشري صوما أظن أنت قبيستي صلاة دي قلعي بابي أرقت ما تشبيا ما يا صلاة هذا وضع ميس لأن الشانس كيسي لسودا بيوه هداد إمان الله إنت أنا صلاة قلين يا تيوم كيقوا أتشبي لهاي وكوكوي سيسن له لكن ما دام صلاة دي آن قلي تضم بمويه مع السلامة ويمركا صوما أما مركا صلاة دي كبح دي وضم يستي كدي بادركت بيها صلاة دي آتوكتي وسيكو تكت صوما سوحل الملك ساسي معنا ساس ترى وحل والرؤية الماء بيه أرقوضة في غير وقت الصلاة صلاة وقت جاد غير كي أدركت يعني أظن صلاة كتيرين أدركتي طيب والردة ويمد صدحات شبيسات جبيسك الردة دين كالنقشة دين تولغا نقضه أو لقبح والعياذ بالله روح عدو يسوي جبيستي وظهار قبه ودين تكبح والعياذ بالله oo gaaloobo markaana gabagabeysigiisu waa jabay طيب intaasoo kaga soo baxay kadibna meesha wuxuu ka guda galay kabmooyinka jirka la dul saaro
meel baa jabtay markaasaa kabma la saaray ama way murkacatay markaasaa kabma la saaray meesha kabmadu saaran tahay haddii ay meelihii laga weysaysanayay ka mid tahay ood weyse u baahato ama kabmaa ku saaran oo qabays baad u baahatay waajiba see loola dhaqayaa meeshaa dusha wax ka saaran yihiin taasuu meesha ka gudagalay wa saaxibu ljabaa'iri buu yidhi kabmooyinka ruuxa u saaxiibka ah yamsaxu wuu masaxayaa calayhaa kabmada korkeeduu masaxayaa wayatayammamu wuuna gebagabaysan wayusallii wuuna tukan ayib yacni haddii meesha kabmadu saaran tahay ay tahay xubnihii laga weysaysanaya meel ka mida waxaad isugu daraysaa xubnihii kale horta waa dhaqi waad ka weysaysan xubinka kabmadu ku taallana intiisa bannaan baad asagana dhaqi maxaa soo hadhay intii kabmadu saarnaydna kabmada korkeeda ayaad masixi gacantoo qoyan ayaad korka ka marmarini intaa markaad samayso yaad haddana gebagabaysan ya marka inta bannaanoo la dhaqi kabmada korkeedoo la masixi intaa kadiboo la gebagabaysani saasaad isugu daraysaa macnahaas waa ayib walaa'ic kadalika waxaa la mid ah haddaad qabays u baahato iyaduna waa la mid jidhka intiisa kalaa dhaqi inta bannaan korkeedana waad masaxi markaad qabayska ka soo baxdana ya waad gebagabaysani saasaa laga wada wasaaxibu ljabaa'iri kabmooyinka ruuxa u saaxiibkaa yamsaxu wuu masaxaya calayha korkeeda wayatayamam wuu gebagabaysani wayusallii wuuna tukan walaa icaadata soo celinna ma ahaanin calayhi korkiisa salaadaa inuu soo celiyo laguma laha in kaana hadduu yahay wadacahaa kabmada mid dhigay ama saaray meesha ay saaran tahay calaa tuhrin dahaaro korkeeda mid ku saaray hadduu yahay yacni markaad kabmada jidhkaaga saaraysay haddaad dahaaro qabtay oo adoo daahir ah oo wayse qaba kabmadu ay jidhkaaga fuushay markaas salaadda aad saa ku tukato soo celin maysa maxaa yeelay waxay u dhigantao kale yani waa sida khufkii oo kale soo maa soo khufka maynan soo marin fa innii adkhaltuhumaa daahiratayn marka meeshan maadaama ay qarisay meel la rabay in la dhaqo masax bay leedahay gebagabana waa lagu dari salaadda saa lagu tukadayna la soo celin maayo waa goorma waa markii aad daahir ahayd markaad kabmada lagu saaray ama aad isa saaraysay haddaadan daahir ahaynna maxaa laga fahmaya ya calayka alicaada markaa salaadaad saa ku tukato dhan waad soo celinaysaa marka sax salaaddii ka tegi maysa oo intaa isku dartaa tukan laakiin salaadahaasoo dhan hadhow markaad kabmada iska furto hadhow waa inaad salaadaha soo celiso saas way macnaa ayib walaa icaadata calayhi soo celin korkiisa ma ahanin in kaana hadduu yahay wadacahaa kabmada mid dhigay calaa tuhrin meesha ay saaran tahay mid saaray hadduu yahay calaa tuhrin dahaaro korkeed xaaluu daahir yahay macnaa isagoo dahaaro qaba hadduu meesha dhigay markaa iyadaa soo celis male salaaduhu saa ku tukaday ayib wayatayamam waa masalo kale masaladanna wayatayamam wuu gebagabaysani likulli fariidatin salaad kasta oo waajiba wuu u gebagabaysanaya salaad kasta oo waajib ah waa inuu gebagabaysto wayusallii wuu tukanayaa bitayammumin waaxidin hal gebagabaysi ayuu wuxuu ku tukanayaa maa shaaa wuxuu doono oo min annawaafili sunnooyinka ka mida muxuu ka wadaa hal mar markaad gebagabaysato ama aad boodhaysato hal salaadoo farada basaad ku tukan kartaa salaad kaleoo farada haddaad u baahato waa inaad haddana u gebagabaysato gebagabaysigaagii hore hal salaad basuu ku fulan yahay oo farada laakiin salaadaha sunnada ah intaad doontaad iyaga ku tukanaya ya iyaga intaad doonto ku tukan laakiin farad hadday tahay salaad kasta oo farada
gabagabaysi iyo boodhaysi madax bannaan bay u baahantahay ayib saasay leeyihin waxay u deliishanayaan ya cumar baa waxay leeyihiin yaa waxay ka warinayaan bayhaqi sanad saxiix yatayammam likulli salaatin wain lam yuxdith salaad kasta waa u gabagabaysanayaa hadduusan xataa weysada ayna muxuunaha tayammum ka jabin xataa hadduusan kii hore ka jabin waa inuu salaad kasta u gabagabaysto waxaa kaloo leeyihiin tayammumku sidiisaba waxay leeyihiin waa mubiix ee raafic ma ah maxay ka wadaan mubiixa waxa weeyaan xadadkii muusan kaa koryeelin sida biyahoo kale laakiin cibaadada unbuu kuu banneeyey xadadkii weli waad qabtaa saas daraaddeed inaad qabto waxaa ku tusi nebigu sal alla alay wasalam camr ibnu caas markuu tujiyey raggiisii isagoo intuu qabow ka baqay oo gabagabaystay ayuu tujiyey ciidankii ciidan buu hogaaminah markuu tujiyey oo lasoo noqdo madiine la yimid buu nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam asallayta biasxaabika wa anta junub war maadoo janaabo qabaad ragga tujisay buu ku yidhi hadda wuu gabagabaystay ogow wa anta junub ta labaad haddaad janaabo ka gabagabaysato marka ugu horrayseed biyo aragto waa inaad qabaysato haddii gabagabaysigu marka uu janaabadii kaa kor yeelay qabaysi dambe lagaama dooneen bay leeyihiin sidaas daraaddeed waa waxay leeyihiin tayammumku cibaadada unbuu kuu bannayne xadadkii kaama kor yeelin waa mubiix walaysa biraafic bay leeyihiin sidaas daraaddeed maadaama uu saa u tabardaran yahay salaadaha waajibkaana culus yihiin halkii tayammumba hal salaadun baa lagu tukan karaa laakiin sunnooyinku iyagu waa iska fudud yihiine intii la doonaa lagu tukan bay leeyihin adugu warkaasi waa falsafada uu madhabku iyo adilada wax ku dhisayo wayatayammamu likulli fariidatin wayusalli wuu tukanayaa bitayammumin waaxidan hal tayammum maa shaa wuxuu doono min annawaafil sunnooyinka ka mid a faslun intaa tayammumkiibuu ka soo baxay halkana wuxuu ka gudagalayaa nijaasooyinka wa kullu maa'icin shay kastoo qoyan oo kharaja ka soo baxay min asabiilayni labada jid ka soo baxay najisun waa nijaaso ila almaniya manida mooye shay kastoo qoyan oo ama xubinka taranka ka soo baxay ama dabada iyo gadaal ka soo baxay waa nijaaso taas macna ama shay caadi si caadi uga soo baxa labada meelood ha noqdo sida kaadida iyo saxarada ama shayga naadir oo ka soo baxa ha noqdo sida madida iyo wadiga wixii la mid marba hadduu qoyan yahay soona baxo labada meelood ka soo baxo waa nijaaso ilaa kaadida mooye waxaan loo jeedaa waxaan dhihi lahaa ilaa manida mooye manidu inay daahir tahay ayuu madhabku qabaa waana sida xoogga badan sida xadiiska caaisha laga faa'iidaysanayo ayib manida waxaa la mid ah yani mani marka la leeyahay waa xayawaanaadkao dhan waa bini aadam keliya maaha bini aadamka iyo xayawaanaadka noolaha oo dhan manidoodu waa daahir ilaa eyga iyo doofaarka mooye waxaa la mida ukunta iyaduna waa daahir bay leeyahay ayib asalka masaladaa waxaa asal waa bini aadamka manidiisa kuwa kalena waa looga qiyaas qaadanaya oo manida aadamaha ayuu shabaha bay leeyahay ayib daahir ha ahaado manidu daahir ha ahaato laakiin sida mustaxabka in la dhaqo waayo dhaqideedu waa sunno laakiin waajib maaha oo nijaaso maaha macnaha wuxuu yidhi waghaslu jamiici alabwaali kaadid oo dhan ama kaadiyaalka dhaqidoodu walawraahi iyo saalooyinka dhaqidoodu waajibun waa waajib awraahu waa saalada waa saxarada xayawaanaadka soo ma saxarada xayawaanaadka iyo saaladooda iyo kaadiyaalkooda kaadida xayawaanaadka oo dhan dhaqidoodu waa waajib buu yidhi waajib waa waajib xayawaanaadka markaan leenahay bini aadamkaa galaya saas macnaha noolaha oo dhan kaadidiisa iyo saxaradiisa waa in la dhaqo dhaqideedu waa waajib maxaa yeelay waa nijaaso ayib ilaa bawla asabiyi waxaa lagala muransan yahay uun
kaadida xoolaha la dhaqdo iyo saaladeeda saalada xoolaha la dhaqdo iyo kaadidooda baa muran iyo dood laga qabaa oo madaahibta kale ka doodsan yihiin laakiin bini aadamka kaadidiisa waa la isla ogolyahay kuwa aan hilibkooda la cunin kaadidoodana waa la isla ogolyahay iyo saaladooda laakiin kuwa hilibkooda la cuno saaladooda iyo kaadidoodu ma nijaasa lada shaaficiyaha saas macna tayib illa bawla as-sabiy ilmaha yarka kaadidiisa mooyee alladhi kaasoo lam yaakul aan cunin at-ta'ama cuntada aan cunin waa la dhaqi soo ma dhih dhaqidaasu ka soo reebaya ilmaha yarka ah ee wali aan cunto gaadhinee naaska hooyo ku eg naaska basunuga ama caano basu caba ka isaga akaadidiisa mooyee waa nijaaso laakiin la dhaqi maayo dhaqida laga soo reebay nijaasada waxay u qaybiyaan shaafiiciyadu saddex qaybood nijaasa ama najaasa mughallada iyo mutawassita iyo khafiifa nijaasada mughalladada waate waa nijaasada eyga iyo doofaarka mutawassitaduna waa nijaasooyinka intooda kale khafiifaduna waa ilmaha yarka wiilka yarka dhashay ee wali aan cunto gaadhin kaadidiisa sabiga waay sabiyada ma gabadhu iyadu dadka waaweyn bay la mid ayada waa la dhaq illa bawla as-sabiy ilmaha yarka wiilka yarka ah sabiy wiilka yarka kaadidiisa mooyee alladhi kaasoo lam yaakul aan cunin at-ta'ama cuntada aan cunin fa innahu isagu yathuru tahir noqon birashil al-ma'i biyafirdintooda alayhi korkiisa lagu firdhiyay ilmaha wiilka yarkan wali cunto gaadhin asaga hadduu meel ku kaajo kaaydiisa waxa ku filan in biyo lagu sayro biyahaasi inay ka daataan sharti maaha in la dhaqo oo gacanta lagu dhaqana sharti maaha biyaha un baa lagu sayraya waa takhfiif ahadiista nabiga saa kala qaaday salawaatu rabbi wa salaam alayhi kaadida wiilka iyo midda gabadha wala yu'fa la'afin maayo an shay'in shay xaqi oo min an-najasati nijasooyinka kamida la'afin maayo la saamixi maayo oo dhaqitaan laga saamixi maayo illa al-yasira waxa yar mooye oo min ad-dami dhiiga kamida wal qayhi iyo malax ama maash kulba dhado طيب wax yar oo dhiig ama malaxa mooye nijaasooyinka wax kale oo la saamixiyo la cafin ma jiro waa in la wadhaqa way macna laazim way dhaqitaan iyo wama la nafsa iyo waxaan dhiig lahayn iyo wama shay la nafsa dhiig lahu isagu uusan u sugnaanin saa'ilatun oo shubmaya dareeray nafsigu wada waxa laga wadaa dhiig baa laga wadaa waxaan dhiig dareeraba lahayn طيب waxaan dhiig dareeraba lahayn wuxuu ka wadaa maya wama la nafsaas hadal dambe way nijaasooyinka waxa jira waxyaalo macfiyaho aan dhaqid u baahnayno yaani la iska saamaxay maxay tahay waa dhiig yar oo midalan ku gaaray oo kale wax yar oo badnay inta yarta waa macfi ama mehe midalan malax yar yaa ka soo baxday ama marada ka gaadhay waa macfi wax badan wax iska yar waa inta yarta waa iska macfi biilay طيب laana waxay leeyihiin waa waxay adag tahay in laga ixtiraazo in la iska ilaaliyaaba yarba طيب ficlan saxaabadu ridwanullaahi calayhim mariyahooda oo dhiigu ku yaalo dhaawaca iyo markii dhaawacmaan iyo athar badan baa ku soo inay ku tukan jireen wama la nafsa wixii aan lahayn dhiig wama shay la nafsa dhiig lahu isagu uusan u sugnaanin saa'ilatun oo socda waxaan dhiig dareeraya lahayn إذا قرتي وقع الضع في الإناء ويلك وكضع ومات وكدنت فيه دحديسة فإنه إسق لا ينجسه من نجاسينه وحاتر عيانات يريرو أن ديك بالله أبورين بأصل كيو ديك ماله عيانات كاسي هذي كضع ويلك أما بيها أما عانه يكضع باختيار من نجاسينه حكم ذا دخسيقو كله daqsiga iyo maxay quraanjada oo kale quraanjada iyo sidoo kale waxay dhahaan shilinta oo kale
shinnidoo kale baashan la yidhaahdo muxuu ahaay injirtoo kale jirtu dhiig ma leeda laakiin dhiiggeedu asal maaha dhiig waxay markay wax qaniintay dhiig heshaa iyo dhiig u galaa soo ma kanaacado kale soo ma dhiig iyadu ma leh laakiin dhiiggee dhuuqdaa ayaa galaa haddayna muddo bini aadamba qaniiniinba dhiig ma yeelanayso marka waxyaalaha aan dhiigga lahaynen dhiigba ilaahayba u abuurinba dhacaan bay leeyihin laakiin dhiig ma leh kuwa noocaasoo kale hadday ku dhex baktiyaan waxyaalaha maacaadka ee qoyan ma nijaasaynayaan xadiidkii dubaabkaa ku tusaya nebigu wuxuu yidhi midkiin hadduu weelkiisa uu baalkii ku dhaco daqsigu ku dhaco muxuu yidhi ha mukhuursiiyo soo ma ha mukhuursiiyo kadibna ha ka tuuro ayib mukhuursiinta maxaa ka dhalanaysa soo inuu ku dhex baktiyo maa waxaa kutusi marka inuusan nijaasaynin taasaa laga qaadan ayib walxayawaanu xayawaanka nooluhu kulluhu dhammaantii daahirun waa daahir walxayawaanu nooluhu kulluhu dhammaantii daahirun waa daahir intuu nool yahay wey nooluhu intuu nool yahay oo uusan baktiyin hadduu baktiyo waa nijaas laakiin noolaha dhammaantii intuu nool yahay nijaaso ma ah ilaa kuwan uu ka reebi doono mooye maalan dameer baa wuxuu dhex galay biyuu dhex galay ama bisad baa dhex gashay ama jiir nool baa dhex galay maadaama uu nool yaho weli uusan baktiyin nijaaso maaha jidhkiisu nijaaso maaha wax ma nijaaseeyo taasaa laga wadaa ila alkalba eygii mooye waalkhinziira iyo doofaarkii iyo wamaa tawallada wixii ka dhasha minhumaa labadooda ka dhasha aw amase min axadihimaa midkood ka dhashay mooye somaynaa soo marin macnahaas eygu isaga oo nool buu nijaasaya doofaarkuna isagoo nool buu nijaasaya wixii ay gaadhaan waa nijaasaynayaan laakiin noolaha kaloo dhan intuu nool yahay waa daahir macnaha way macnaha laga wado ayib eyga nijaasanimadkiisa waa u togi doona qaabka loo dhaqi doono xadiiska ayaa tilmaamay 7 goor dhaqa haddii la yidhina nijaasanimaa laga faa'iidaystay bay dheheen doofaarkana nijaasanimadkiisa aayaddaa laga qaadano aayaddii suurat lancaam soo maahayn aw laxma khinziirin fainahu rijsun waa nijaaso macnahaasay ka qaateen inkastoo a'immada shaaficiyada qaar ka mida ibnulmundir iyo waxaan u jeedaa imaam nawowi ay leeyihiin ayaddaasi macnahay kutusaysana dood baa ku jira daliil kaloo ku cad nijaasanimadkiisana lama hayeelin wakadalika qaabka loo dhaqayo waa doofaarka ayib waalmaytatu baktigii kulluhaa dhammaanteed najisatun waa nijaaso ila asamaka mallaygii mooye waljaraada iyo ayaxa waalaadamiya iyo aadamiga mooye haddaynu nihi noolaha inta uu nool yahay waa daahir hadduu bakhtiyoo dhinto gowrac la'aan hadduu bakhtiyoo dhinto nijaasuu isu beddelaya ayib dhammaanteed bakhtiga oo dhan nijaaso waa ilaa 3 mooye samaga oo mallayga mallayga waxaa laga wadaa waxyaalaha biyaha ku noolaadoo dhan baa samag laga wadaa suuradiisu say dooni ha u taallo ya marba hadduu badda ku nool yahay waa malay bakhtigiisu marka nijaaso maaha waa xalaal alxillu maytatu soomayn xadiidka ayib waljaraada iyo ayaxana waa kana naqaanay wada socdee waa la cunaa isagana bakhtigiisa waa la cuni waalaadamiya iyo aadamiga mooye bini aadamku markuu dhinto isagana ma nijaasoobo leanna ilaahay baa karaameeyey allah karaameeyo noolaha kaluu ka karaamaysan yahayo hadduu nool yahay iyo hadduu dhintaba nijaaso maaha xataa hadduu gaal yahay oo xageed geynaysaa inama almushrikuuna najasu ya mushrikiintu waa nijaas macnaha waxaa laga wadaa ictiqaadkoodaa nijaasa laakiin jidhkoodu nijaaso maaha xadiista nebigaa kutus salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wayuqsalu waa la dhaqi buu yidhi alinaa'u weelkii baa la dhaqi min wuluuqi alkalbi
eyga gelitaankiisaa laga dhaqayaa weliba waa afka carabka inuu geliyo walkhinziiri iyo doofaarka gelitaankiisa uu afka geliyo ama carabka geliyaa laga dhaqayaa 7 maraatin 7 goor baa la dhaqi ihdaahunna midoodna bituraabi carra lagu dhaqayaa weelka ay hadduu galo afka geliyo ama doofaar afka geliyo 7 goor baa la dhaqi 7da mid ka midana carra lagu dhaqayaa tayib waxa la mida eyga iyo doofaarka wixii ay dhalaan iyo wixii ka farcamana waa la mid tayib marka maxaa laga wadaa bimaana marka la dhaqayo weelka laga dhaqayo waa marka uu gaadho carabkiisu ama caliyadiisu ay gaadho afkiisu markuu gaadho kaadidiisa iyo saxaradiisuna waa ka sii xag jiraan dhacaanka jirkiisana waa la mid laakiin hadduu ingegan yahay oo isagoo ingegan weelkii ingegan uu taabto ama adigoo gacantaadu ingegan tahay jirkiisoo ingegan uu taabto isma nijaasaynayaan markaa مثلا وكوغ ريغتay aygiisu soo ordahay buu kugu ritayba maradaadu maray jirkaagu maray saasu kugu ritay markaas uu ku dhaaf ma nijaasow ma laana laba ingegan isma nijaaseeyaan sooma saxara iyo xaar ingegay hadda saa u qaado maxaa gacantaada soo raacay waxba urna kuma soo raacin يعني نجاسة عينteedina kuma soo raacin وبالتالي laba ingegan isma nijaaseeyaan macnu wasaas laakiin markuu nijaaseynayo dhacaankiisa gaaray ama kaadidiisa ama afkiisa ama waxa gaaray marka way marka laga dhaqayo 7 goor baa la dhaqiyo mid kamid ah waxa lagu dhaqayaa carro xadiiskaas uu sheegay aygu xadiisku arooray in loo dhaqayo doofaarkana way uga qiyaas qaateen waa qiyaas dha'iifa sida aymada shaafiiciyada qaar kamida ay tilmaamayaan tayib meesha uu inayiri ihdaahunna mid kamida waxa ka fiican in la yiraahdo ulahunna yani 7 dhaqmo midda ugu horeysa carra laga dhigaya riwaayadaasana xoog badan tayib isagu wuxuu yiri mid uun kamida 7 ihdaahunna mid uun kamida oo riwaayadaas ku soo arooraysa laakiin waa laga xoog badan wayughsalu wala dhaqi wiri من سائر النجاسات نجاسوينك انتودا كله مرة هل مر بالا دقي مداسو مراداسو تأتي إيمانيس عليه نجاسة كوركيدا كو إيمانيس يعني كل ودا غاري يسوي ايغا iyo doofaarka iyo wixii ka farcamay 7 goor baa la soomadeen nijasooyinka kalena hal mar baa ku filan halka mari laakiin waa inay taati alayhi waxa laga wada taati alayhi waa inay wada gaadho waay أتى على الشيء بالله الشيء مركو دمانتي وذا قاعد وإنه نجاسة ماشى كسارو نجاسة أوركذا ردن كذي إيوه مذهب كذي وإنه هل كامر الزوليسو هل كامر باكو قفله هذا الزولي وإذا وإن المر لو تقدرت هذا الزولي وإذا مرصد حدنا تقدرت صوما طيب اللهم إنه يبقى أتكاتو لكري وعين تهذا إن الزولي مويه ومركا هذا أتكاتو صدح قوري هذه انت الله دقي لك كري واي مركا معفي واي طيب والثلاثة صدح دي قربان أفضل فضل بدن سومين عند هالمربع كفلا والثلاثة صدح قورين عند نجاسة الدقضو أيا أفضل فضل بدن طيب وإذا قرت تخللت أي كلاميرانتو الخمرة خمردي بنفسها نفت لفهانت هذا وكلاميرانتو ويخل نقطه طهورت وطاهر نقطي وإن خللت حدي لك لميرو بطرح شيء كتوريدي سفيها نحن لغو توري هذا مركز خلق نقطنا لم تطهر ظاهر من نقنس عند الشافعية وعند الجمهور خمرض ونجاسه محا نجاسه ذا صوابه وحيليه نجاسه ذا وحا صوابه مادة سرقام ككينيس مادة كوشرتي وح سرقامينيسا إيه استعمال كذا حراميسي فنجاسة نمدة نذا كينيس
طيب خمردي way kala miiranto way kala degtay maadadii sarqaaminaysay baa ka baxday hadday iskeeda iyadu u kala miiranto maadadaasi ka baabado khal bay noqotaa markaa khalka wuxuu noqdaa markaa shay raashinka lagu darsado oo waxay u isticmaali jireen iidaan ahaan markay nacasoo kale u kala miiranto maadadiis wax sarqaaminaysay ka baxdo marka daahir bay noqotay waa la isticmaali karaa haddiise laakiin adigu aad ka shaqayso inay kala miiranto oo maadadii wax sarqaaminaysay inay jabto oo ka baxdo adaa ka shaqeeyay waxbaad ku dhex riday markaasi daahir ma aha bilay marka wali waa nijaas oo maxay nijaas u tahay waaba kala baxday waxay leeyihiin shaygan marka uu ku dhex dhacay oo ama dabayl ku riday ama adiguba aad ku riday marka nijaasay ahayd sooma laana maadadii waxay lahayd soo wali maadadii ma jirin iyadoo jirtaad ku dhex riday shaygu waa nijaasoobay marka asagoo nijaasoobay buu ku dhex jiraa طيب shaygii wuu kala miiray oo maadadii buu jabiyay wax sarqaaminaysay asagii wali waa nijaas ay leeyihiin ayadii hadday kala miiranto oo uu kala miiray oo uu kala dajiyay asagii oo nijaasaa wali ku sii dhex jira asagaa nijaasaynayay leeyihiin marka saas daraadeed daahir ma noqonayso haddii laga shaqeeyo laakiin hadday iskeed u kala baxdo markaas khal bay noqonaysaa iyo daahir bay noqonaysaa طيب فصل ويخرج وحا بحي من الفرج فرجك وحا كسب بحا 3 دماء 3 ديغغا xubinka ka soo baxa dumarka ayaa hadda laga hadlayo ahkaamtooda ويخرج وحا ka soo baxa min الفرج xubinka taranka ee dumarka waxa ka soo baxa 3 دماء 3 dhiig baa ka soo baxa دم الحيض dhiiga xaydka والنفاس iyo dhiiga nifaaska la dhaho iyo والاستحاضة iyo dhiiga دور فرنك أما حيض فرنك فالحيض ديجا حيض كليلان هو يسقو الدم وديجا الخارج كصوبحة من فرج المرأة هوين إذا حبن كذا ترنك كصوبحة على سبيل الصحة فيوبي تشيت كذا كصوبحة عذر عن كصوبحين يجو فيوب دمر كيما هذا وعافمات قضى من غير سبب الولادة سبب أن ضلماء هين كصوبحة wuxuu yiri waa dhiig ka soo baxa xubinka taranka ee dumarka caafimaad qabna ku soo baxa ala sabiili sixa wuxuu ku ka ixtiraazaya dhiigan muxuu ahaayay dhiig furanka laana dhiig furanku waa dhiig sidoo kale soo baxa laakiin muxuu ku soo baxa waa nooc jira ah talabaadna waa dhiig ku soo baxa dhalma la'aanteed dhalma ma keentee sidiisuu soo baxa qodobkaana wuxuu kaga ixtiraazaya oo kaga saaraya dhiigga dhalmada ee nifaaska maxaa yeelay waa dhiig la mida kaasoo kale laakiin isaga sababta keenta dhalma kan dhalmana ma keento xanuunna ma keeno waa dhiig si dabiici dumarka uga soo baxa kaasa la yiraahdaa muxuu ahaayay xaydliga هو الدم وديق الخارج صوبح من فرج المرأة هوين ديق حبن كذا ترنك كصوبحة على سبيل الصحة فيوبي تشيت كذا كصوبحة أيضا فيو من غير سبب الولادة ضلما السبب كذا سبب أنا هين يعني ضلما سبب أنا هين كصوبحة ضلما السبب أنا هين كصوبحة أيال ليدا طيب ماشي أوكي ماده سيدا حديث المام السوح ويان أقصى رحم المرأة هوين إذا ama dumarka makaankooda ama minkooda meesha ugu shisheeyay ka yimaada yaani waa ukuntii ilmuhu ka abuurmi laha oo soo burburtay waay marka waxay ku jirtaa meel shishe walawnuhu midabkiisuna dhiiga xaydka midabkiisu aswadu wa mid madow muhtadim waa dhiig madow oo muhtadimun oo kulul لذاع وحنوجينيا يعني markuu soo baxayo uu xanuujinaya muujici waana kululya midabkiisuna waa madow marka hore uu soo baxayo madow yahay xogaa markuu socdo hadana wuxuu isu bedelayaa guduudka wax yar buu hadana uu isu bedelayaa jaal ahaan buu noqonayaa
haddana waa isbedelaya calow buu noqonaya yani mar ka dambaysa waa soo khafiifaya laakiin markiisa hore midabkiisu waa madow urna waa leeyahay والنفاس نفاسكنا وديق لبادا هو الدم وديق الخارج صوبحة عقب الولادة للمضى قداش هذا صوبحة markay haweentu saa u dhasho ilmuhu ka soo baxo dhiigga ka daba yimaade gadaal ka soo baxa ayaa la yiraahdaa nifaas la yiraahdaa aqiba alwiladati markuu ina yiri waxa meesha ku baxaya dhiigga soo baxa marka ay foolanayso ilmihi ma soo bixin ama ilmahaba dhiigga la socda kaasi dhiig dalma ma waa damu fasaad bili yaa waa dhiig fasaad ee dhalma ma sidaas daradeed haweentii iyadoo foolanaysa dhacaan iyo dhiigi waxba ka yimid ma tukanaysa mise ma tukanayso ya war ma tukani oo maxay u tukan weyday nafaaskii lama gaadhin nifaaskii way nifaasku waa dhalmada kadib soo kuma dhiin dhiigga cibaadada diidaya nifaaska waa dhal ilmuhu markuu soo baxo dhiig ka dambeeyo waa aqiba alwilada ma had ka fahmay dhalmada kadib way dhiigga yimaado ilmaha intuu meesha ku jira dhiigga soo baxa ama ilmaha ba la socda nifaas ma saaso yimaado طيب والاستحاضه dhiig furankuna waxa weeye huwa damu waa dhiigga al-kharij ee soo baxa fi ghayri ayami al-hayd maalmaha haydka maalma aan ahayn soo baxa wan nifaas iyo nifaaska maalmihiisa maalma aan ahayn haydku waqtiyuu leeyahay uu ka hadli doono dhiigga dhalmaduna waqti buu leeyahay labada waqti waxaan ahayn dhiigga iska socdana istixaada la yiraahdo istixaadadu waa dhiigga dhiig furanka la yiraahdo ama dhawr furanka la yiraahdo waana dhiig iska joogta inta badan طيب meeshuu ka soo baxana waa ka duwan yahayo isaga xanuun baa keena nabigu sidoo ku sheegay sallallahu alayhi wasallam xidid shaydaan haraatiyay waa xidid baa shaydaan haraatiyay kadibna dhiigana soo furtay wuxuuna ka soo baxaa meel soku ka yimaada yani makaanka ama minka sokodiisa meel ugu sokaysa buu ka yimaada meesha dhiigga caadadu uu ka yimaado minka ama makaanka meesha u shaysa ka soo baxay meel soku ka soo baxa marka waa dhiig xanuun keeno waa kaasi marka wax weeyaan ahkaamtooda kala duwan saddexda dhiig waa kadib wuxuu bilaabay inuu ku yiraahdo haydku muddo intee leeg baa u badan muddadee u yar wa aqallu al-hayd haydka inta ugu yare ee la dhihi karo waa hayd waa yawmun wa layla wa habeen iyo maalin baa u yar caadada dumarka macna maxaa laga wadaa haddii habeen iyo maalin uusan gaadhin dhiiggaasi oo ka yar ku go'o caado ma habeen hayd ma waa damu fasaad caadadii salaadii diidaysa cibaadaadka ma wa aktharuhu intiisa u badanna haydka intiisa u badan ee uu haweenka hayn karana 15 yawman wa 15 bari 15 bari hadduu dhaafo oo haweentii wali caadadiisi dhiigii ka socdo muxuu noqonaa marka ya marka dhiig furan waa 15 bari wixii ka badan maya habeen iyo maalin wixii ka yarna caado ma saasoo ka hadlay وغالبه انتي سبضنا ديق عادته سيدي أبدا يهينا 6 و6 بري أو أما 7 مسوات دوبري انتي سبضنا دمركو سي أبدا يهين أما 6 بري بوهايا أما 2 بري بوهايا واسيدا بدنا طيب وأقل النفاس نفاسك يديق بالمدى انتي سأغيري لحظة والبرقس لحظة تبتقارك وحلقة إن يدين قريسة مجة يا مجة وهل مر تفيد واي هل مر حبينك وديك تفو هل مر سوبو دا بس لحظة نوائل برقس بمعنى ديك المضى وحاوير مركي المه صابحه هل مر البرقس يديك هدو صابح وانت كو استاغو وديك دلمو انت ساوير انت وديع كرتا انو سن كبا بدنينبا marka ugu horeeyay intuu ka soo baxo bas in la waayaba waa dhiigi nifaaska inta ku ekaaday inta saa u yar wa aktharuhu inti sabadanna
60 يوما ولحدا بريوا لحدا بري ديكي دلمدو هدو سي هي هوانت يا اسلانتو ولي ديكي سي قبتو لحدا برينا دافتو maxaan dhahaynaa marka ya waa istixaada dhiig furan baa kugu dhacay waa jiran tahay marka ya lixda bari wixii ka dambeeya dhiigani ma aha dhiigii dhalmada cibaadaysa la leeyahay wagalibuhu intiisa badanna dhiiga dhalmada intiisa badankiisu 40 yawman wa afartan bari wa afartan bari baa u badan saasuu leeyahay waa say dumarku u badan yihiin macna saas qabo inuu yahay طيب واقل الطهر طاهر نمدا انتدا ugu yar بين الحيضتين او لبدا حيض u dhaxeeyay 15 يوما و15 bari halaga wada bimaana حيضkii xilligii ay ka qabaysatay حيضka iyo kan kale ee ku dhacaya muddada u yar ee u dhaxayn karta labada حيض ee daahir ay ahaanayso waa 15 bari muddada ka yar 15 ka bari ee daahir ay ahaato loogu tala galay haddii dhiig ay isku aragto dhiigaasi xayd ma sooma muddada ugu yar ee la rabo inay daahir ahaato labada xayd dhexdooda waa 15 bari 15 bari gudahooda xayd ma soo gali karo haddii dhiig kale soo galo waa dhiig kale ee dhiigii xaydka ma baaha bay leeyahay saas way macna طيب ولا حد وما سغنانين ولا حد لاكثره انتي سبدا وما سغنان يعني dhiiga waxaanu jira duhriga labada xayd u dhaxeeya intiisa u yar ee uu jiri karo waxaynu nidhi waa 15 bari intiisa u badanna xad ma leeyahay waxa dhici karta labadii caado inay u dhaxayso bil inay u dhaxayso dhici karta oo daahirta laba bilood inay u dhaxayso dhici karta oo daahirta shan bilood inay u dhaxayso dhici karta oo daahira sidaas daraadeed badanka dhanka badnaanta xad ma leh laakiin dhanka u yaraanta 15 ka bari xadidanta macna saasi ka wada wa aqallu zamanin xuduudaas oo dhan intaas oo dhan wa aqallu zamanin zamanka ugu yar oo tahiidu ay xaysho fihi zamanka dhexdiisa almar'atu haweenaydu ay ku xaydo oo caadadu kaga timaado waa 9 siniina waa 9 sano waa muddada ugu yar ee ay dumarku caadada ku helaan waa 9 jir maxaa laga wadaa 9 sano ka yar gabadhan 9 jir ba gaadhay haddii dhiig ku dhaco maxaa dhaysa ya dhiigaasi caado ma gabadhu waa jiranta meel kale looga yimid laakiin 9 jir ba hadaynan gaadhin caado ma heli karto laana muddadii ugu yarayd ee caadada lagu heli lahaa baysan gaadhin saas ka wada intan oo dhan laga soo bilaabo waa aqallu hayd yawm wa layla laga soo bilaabo xadidaadahan haydka intaas u yar intaas u badan saas u badan yahay nifaasku saas u badan yahay muddadaas u yar yahay labada hayd muddadu u dhaxaysa daahirku muddadaas waa u badan muddadaas u yar yaani badankii xad male muddada gabadhu ay caadada ku helayso 9 jir ba xadidaadaha soo dhan دليل لسو غوريو او منقوله ملها لكن waxay u cuskadaan al-istiqraa hadii ay dumarkii la daba galay oo imaam shaafici baarbaaray oo warkoodii ururiyay intaas soo helay saas daraadeed intii aan maqlay ama aan arkay ama aan ogaaday baaris kadib dumarku waa inta wixii sida ka baxsan ma hayno waa istiqraaga wax weeyaan hadii la baarbaaray oo la raadiyo la daba galay natiijo waxa la gaaray inaan sidaas si ka gedisan jirinba hadii la soo helo maxaa sameynaysaa waa mid keenaysa in madaahibtu markuu ku kala duwanaadaano xanaabiladu meel bay ku dhufano xanafiyadu meel bay anaguna si kala soo aragnay dhahaya sooma maalikiyadii baadbaadnayo anaguna sidan si ka gedisan baan soo aragnay kulli qadaayaadkan marka waa qadaayad ijtihaadi ah asalku waxa weeyaan sida saxda waxa loo noqonayaa dimaada sifaadkooda fiican in loo laabto sifaadka ayaa kala saaray laakiin taxdiidaadkan inta badan waa iska ijtihaadi madaahibtuna islaamiyal dhigan waa طيب waqtiga inaga dhamaaday hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sallam
mm